waayahay maanta waa muuqaal kale iyo Daynil argada Daynil waad u jeedaan halkan ayaan muuqaalkeena ka bilaabeynaa wadadan oo labada dhinac la dhisay iyana muddana hadda dhisan ayaan idin tusaynaa waa muuqaalkii Jimcaha Daynil dhismooyinkan badankood waxay aad u dhismeen markii wadadan laamiga la saaray oo labada dhinac laami laga dhigay marka waxaad u malaysaa in laamigan uu isbedel ku sameeyey degmadan waxaad u jeedaa goobaha ganacsi horta dadku ay isaga shaaheynayaan ku nasanayaan marka laamiyadu qayb weyn ay ka qaataan bilicda magaalada iyo dib u dhiska gaar ahaan inay meeshii laami laga dhisaba deegaankeedu fiicnaado sida laamiyada kaloo kale aad uma dheera wadooyinka weyn oo kale laakiin labada dhinacba waa laga dhiso laami ayaa la saara wadadan Daynil waxay ka soo baxdaa argada kulliyadda jaalasiyaad ilaa gudaha Daynil ayay sii gashaan dadka oo baranayaan ka mid ah qudhiyada Muqdisho wax badan aan joogaa haddana wadadan muddooyin kan miiman oo waxaan dhihi karaa dhowr sano ilaa 8 sano maan iman meelahan marka idinkana barta anaa aan bal dib u barto markay ugu dambeysaan ma ahayn wadada oo wada burbursan oo rafaadsan ay ahayd dhismooyinkan iyo goobahan ganacsi intaba kuma oolin weli wadada Daynil ayaan saaranahay ee ka soo bixaysay kulliyadda jaalasiyaad laami weli waa sii socdaa cabaaraan soo soconay sida aan u maleynayo maba habbo laamigu ka dheer yahay inta aan qiyaasay inkastoo uusan gaaraynin wadooyinka waaweyn ee caasimadda sida wadnaha Sodonka iyo Makal Mukarrama haddana waa laami dheer dad badan Muqdisho jooga ayaa laga yaabaa in aanay aaminsanayn bayn halkan Muqdisho ay ka mid tahay laakiin waa Muqdisho degmada Daynil laami waa dhowr kilomitir labada dhinac marka dhinaca istaagay oo jeedin laamigi labada dhinac marka laamiga hadda hal dhinac ayaa sii socda oo dhinac sida jeedaan ba hadda halkaas ayuu ku egyahay laakiin waa la diyaariyey un kaliya laamiga in la saaro ayaa ka dhiman marka hadda hal dhinac ayuu noqda laamiga dhinaca markii la soo gaaro dhulku bannaaya markii halkan la soo gaaro
ilaa halka laamigu ku egyahay ayaan tegaynaa weli daynil ayaan guda jirnaa daynil degmooyinka baxdoon ayay ku jirtaa dhul badan oo bannaan oo aan deegaan ahayna way leedahay qeybahan dambe waxaa u badan dadka danyarta ayaa degan ama dadka barakacayaasha laamiga halkaan ayuu ku egyahay halkan ayaa ugu dambaysa daynila laami dheer loo dhisay oo laba dhinac inkastoo markii xoogaa la soo socdo hal qayb ay aanay dhammaystirnayn laakiin qaybta kale ayaa la soo dhisay wax badan halkan ayuuna ku egyahay laamiga marka muuqaalkeeni jimcaha ee maantana daynila ayuu ahaa waana intaa saaxiibayaal